Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba adduunka ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub subax kastoo khamiis ah waxaad igaga barateen inaan idin soo gudbiyo waqtiga geemka la soo deyn doono iyo waxyaabaha sida officialka loo keeni doono waxyaabo waxaa jiro oo la filayo in la keeno iyo waxyaabo si official ah markaasi loo filayo in la keeno maanta waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha sida officialka ah loo keeni doono iyo waqtiga geemka oo la soo deyn doono mucaashaqiinta igu xiran dhammaan waxaa idinka codsanaa inaad muuqaalkan like saartaan channelkan subscribe dhahdaan gambaleelkana aad furataan si aad mar walba muuqaalada aan soo dhigno ay kuu soo gaaraan waxaan idinka codsanaa maadaama aan intaan marayno kunka waxaa inooga dhiman wax yar ayaa inooga dhiman kun subscribe inaan gaarno هذا هو سنتين وخالكين هدي أن جدا وسيجلنا وحيابها سيدا official كالله كيني دون وحكمده تمبركو هرتا إن أو دي دونا update فرسن كيسو ياي 4.2.0 إن أو دي دونا وسي official أهبال الله هوا نمبر لابو جيم كإن سيدان update لغا دي دونا أو wajahadiisa ama loogadiisana la soo bedeli doono oo aad ku soo degsanaysid Play Store ama App Store kana waxa waaye official waaye geemka waxaad banayn doontaa space dhan waxaad banaynaysaa 1 GB ilaa 1 GB bar ayaad banaynaysaa taleefankaaga space kaas ayuu ku soo degi doonaa marka waxa kaloo jiro Play of the Week-yada sida officialka loo keeni doono waa inta hadda shaashada uga jeedaan ayaa la keeni doonaa waxaa kaloo jirto European Club Championship waxa la dhahayo ayagana Players kan hadda shaashada ugu jeedaan ayaa la keeni doonaa si official ah waaye waxaa kaloo jirto campaign-ka marka la keeno 3 ciyaaryahan oo la jirto ciyaaryahanadaas waxa waaye Kimmich iyo Luis Suarez iyo ninkan Botieri ah laga yaabaa ciyaaryahano kale oo markaasi in la keeno laakiin saddexdaas waa official dhanka kale haddii aan u gudubno ninka la yiraahdo Eden Hazard wuxuu ku jiraa ragga sida officialka loo keeni doono asagana official baa loo keeni doonaa 500 oo coins iyo ka badan in lagu furto sida Fernando Torres oo kale asagana intaas in lagu furto ayaa la filaa waxa kaloo la keeni doonaa 5 garoon oo ay sheegtay Konami in ay ku soo dirtay Base Mobile 5taas garoon oo ay kala yihiin garoonka Manchester United garoonka Arsenal garoonka Bayern Munich garoonka Inter Milan garoonka AS Milan iyo garoomadaas ayaa la sheegay in markaasi geemka lagu soo diray 5taas garoon waa kuwana Allianz Arena Old Trafford iyo Emirates adish lix waaye waxaa lix ugu ah garoonka eFootball Stadium ayaa lix ugu ah marka garoomadaasna waa official waa la keeni doonaa mana baaqan doonaan season 2 in loo gudbi doono oo season 1 laga tagay waa ayadana official muuqaalka bilowgiisa waxaan ku dhahay waqtiga geemka la soo deyn doono ayaan ku sheegi doonaa waqtiga geemka la soo deyn doono Soomaaliya waxa waaye 5 saac oo subaxnimo marka geemka 5 saac baa la soo deyn doonaa wadamada kalena shaashada ayaan idin soo wada saari doonaa la socda intaas ayaa official ah waxyaabo kale oo dheeri ah geemka inaad ku aragtana waa laga yaabaa marka waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like saarto channelkana subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si mar walba xog cusub aan kugu soo gudbino